ganacsiyo badan waxa suuqa ka saara ma haynaysan helin macaamiil ee waxa weeyaan inaysan daryeelin macaamiishooda taas waxayna tusinaysaa muhiimadda macaamilku u leeyahay ganacsiga barnaamijka maanta waxaynu ku eegi doonaa muhiimadda ay leedahay daryeelka macaamiishu gaar ahaan ay ganacsiga u leedahay soo ganacsigaas uu noqon mid midho dhala faa'iidadii laga rabay iyo ujeedkiina laga gaadho kusoo dhawaada barnaamijka Connected Case barnaamijka waxa idin la socodsiiya anigoo Axmed Kaysa Farxaan waxaanu ku wadaagno waxa kamid ah arrimaha ganacsiga ee ka hadalka u baahan sheekooyinka saameynta leh iyo ganacsiyada Soomaalida ee istaahila in la baahiyo barnaamijka bartaan ku leenahay YouTube si aad mar walba uga socoto muuqaalada aan soo galino fadlan subscribe gare gambaleelkana taabo barnaamijka maanta waxa marti igu ah Maxamed Sulub Maxamed waa aqoon-yahan khibradiisa iyo aragnimadiisa la xiriidho ilaalinta iyo daryeelka macaamiisha waxa uu tababar siiyaa shirkadaha waaweyn dalka hadda waxa uu yahay madaxa xiriirka ee jaamacadda Hargeysa Maxamed aad baad mahadsantahay Axmed Kayse farxad bay tahay inaad igu marti geliso barnaamijkan xiisaha badan ee Connected Case Maxamed aad baan ugu faraxsanahay inaad barnaamijka qayb ka tahay waxaan kaaga mahadcelinayaa sida aad u soo ajiibtay martiqaadkii aan barnaamijka kaaga soo fidinay barnaamijka waxaan ku eegaynaa door intee leeg bay ilaalinta daryeelka macaamiishu ay ka tahay kobaca iyo horumarka ganacsiga waxyaabahaasi iyo waxyaabo ku saabsan waxaan kala sheekaysan doonaa Maxamed Sulub Maxamed su'aasha koowaad aan ku weydiinay waxay tahay marka la leeyahay ilaalinta daryeelka macaamiisha si daawadayaashu u fahmaan maxay ka dhigan tahay waad mahadsantahay Axmed horta daryeelka macaamilka intaan u galin macaamilka haddaan yar ka yiraahdo macaamilka waxa la yiraahdaa qof kaste ama ganacsi kaste oo ganacsi kale ama business kale wax ka iibsanaya ayaa la yiraahdaa qofka macaamil la yiraahdaa macaamilkaas wuxuu noqon karaa mid si joogto ah wax kaaga iibsada ma ganacsigaaga wax uga iibsada iyo mid marar gaar ah ka iibsada buu noqon karaa daryeelka macaamilka marka uu namaadana waxa weeye in macaamilka ku xiran ganacsigaaga aad daryeesho si ay u timaado inuu ku qanaco adeegyada aad bixinayso ku xidhnaado company-gaagii ama ganacsigaagii inta badan waxa la yiraahdaa daryeelka macaamilku wuxuu ka yimaadaa in macaamilku uu helo wixii uu ka rabay ama wuxuu ka filanayay adeeg uu iibsanayo ama alaabtu iibsanayo kadibna uu ku qanaco marka hadii uu ka helo qofku wixii uu ka filanayay macaamilku uu ka helo wixii uu ka filanayay alaabta ama tayo ah ama qiimaha isagu uu ku iibsan kara ama tayadii uu filanayay waxa imanaysa inuu ku qanaco adeegaagii alaabtaadii taasina waxay keenaysaa hadhow inuu daacad u noqdo ganacsigaaga markasta ku xidhnaado oo soo noqdo oo taasina marka waxay ka timaadaa taasina waxa weeye daryeel fiican oo ganacsigu uu sameeyo macaamilkiisa hadii aan sheegnay in macaamilku yahay waxa xukumaya in ganacsigaas uu noqdo mid taabagala oo socda faa'iido la rabay inuu ka gaadho muxuu yahay xiriirka ka dhaxayn kara ilaalinta daryeelka macaamilka inuu company-gu horumar ka gaadho ama uu dib u dhac oo company-gu ku khasaaro maxay xiriir ka dhaxayn kara Axmed waad mahadsan tahay horta inta aan macaamilka loo galin waxa jirta marka suuqgeynta la sameeyo waxa la sii eegaa isagoo macaamilku wali macaamilku noqon baa waxa la sii eegaa waxa jirta waxa la yiraahdo toolska marketing ama suuqgeynta oo ah qofku ganacsigu waa inuu hore u soo qiimeeyaa alaabta ama adeegga ku haboon horta koow waa inuu ogaada macaamiisha isagu target garanayo amba hadhow wax ka iibsanaya kadibna waa inuu u sameeyaa adeeg ku haboon ama alaab ku haboon qiimo ku haboon sida ugu wanaagsan lagu geyn karo oo insa la sameeyaa hadhow marka timaado in alaabtii la soo saaro ganacsigu alaabtu iibiyo macaamilkina uu sameeyo waxa aad bay isku xidhan daryeelka macaamilka iyo guusha amba khasaaraha ganacsigu tusaalahaan macaamilka markuu wax ka iibsado dabcan revenue amba sales amba iib ayuu sameeynaya ganacsiga sameeynaya iib markuu sameeyana faa'iido ayaa ka imanaysa faa'iido markay ka timaadana de company-gu waxa weey hore ama ganacsiga hore u soconaya exactly marka waxaan oran karaa qodobka koobaad aad bay isku xidhan yihiin markastoo adeega macaamilka la daryeelo ganacsigiina korniin ba ku socda markastoo macaamilka la daryeelo waayana ganacsiga hoos u dhac ba ku yimaada waxa kale oo oran karaa qodobka labaad oran karaa waxa weey markastoo macaamilka la daryeelo waxa timaada in ganacsiga lagu barto inuu macaamilkiisa daryeelo
kadibna dadku ay aaminaan trust inay timaado inay publicity uu helo ganacsiga iyo lagu barto adeeg hufan isku halayn ama reliability iyo kalsooni lagu helo kadibna company-gi uu profits badan sameeyo ama faa'iido badan sameeyo ama ganacsiga faa'iido badan sameeyo halka ay ka sii socoto ama ha weynaado ama ha yaraado ganacsigaasi qodobka saddexaad ee oran karo waxa weeye xiriir fiican hadii la oo customer-ka la sameeyo ama macaamilka la sameeyo de macaamil badan baa ku imanaya macaamil badan markuu ku yimaadana faa'iido badan baad sameynaysaa ta ugu muhiimsan waxay tahay ciddii suuqa kugula tartamaysay ayaa meesha aad ka guuleysanaysaa hadii daryeelka saad u daryeesho macaamiishu ay ka fiicnaato ciddii kugula tartamaysay ganacsiga aad ku jirto fikradda ganacsi marka la sameeyo ujeedka koowaad ee laga leeyahay waxa weeye inuu faa'iido soo saaro si uu faa'iido soo saarana waa in ay jirtaa cid adeegiisa ama alaabta oo hayo iibsanaysa haddaan ku sii socono su'aalaha maxamed muhiimada intee leeg bay shirkaduhu siiyaan ilaalinta daryeelka macaamilka صح horta waxay la tahay shirkadu hadii shirkadu ama ganacsiyadu baadana dhahdo waa marka qaar ba ganacsigu waa shirkad baahayn waxa guushoodu ku jira markastaba adeegga sida u daryeelaan macaamilkooda sida u ogaadaan waxaan xasuustaa maalin dhaweyd ba jaamacadda waxaan ugu yimid supplier anagu aan customer u nahay marka alaab baan ka iibsanaynay service buu actually noo qabanayay kadibna wuxuu yiri waxaan jecel anaga waxa noo fudud buu yiri inaad saameysaan marka anagu customer baan u nahay marka kadibna waxaan ku yiri oo ma waxaad ka eegaysaa idinka waxa idin fudud mise waxaad ka eegaysaa macaamilka waxa fudud iyo qanaacadiisa kadibna wuxuu ku adkaystay in isaga saa u fudud marka waxaan ku yiri ku noqo bal suuqgeyntiin iyo adeegina daryeelkii macaamiisha sector waayo waxa laga hadlaa hadii jeer customer convenience waxa la yiraahdo oo ah mar kastaba sida uu macaamilkaagu u doonayo adeega ama alaabta macluumaadkan laga hadlayo qiimaha uu ku doonayo lagu sii sameeyo marka aad shirkaduhu ama ganacsiyadu waxay ku kala xoog weyn sida macaamilkooda u daryeelaan muhiimadda uu leeyahay adeeg daryeelka macaamiishu waxaan oran ku soo koobi karaa 3-4 qodob koo horta wuxuu keenayaa in macaamilkii ku daacad noqdo customer loyalty buu keenayaa inaguna waxaan naqaanaa had iyo jeer waxa laga yaabaa qof wax yar ka iibsanaya inaad u arkin inuu soo noqonayo laakiin hadii qofkaas loyal ku noqdo markaste waxa imanaya waxa la customer value ama wixii iibsanaya haba yaraadee way badanaysaa hadhow through lifetime inta uu macaamilka ku yahay way badanaysaa muhiimadda labaad ee aadka u sii muhiimsan waxa weeye wax la yiraahdo word of mouth ayuu sameynaya oo ah asxaabtiisii iyo macaamil kale ayuu ku keenayaa ii dhahay noqonaysaa exactly marka wana ta ugu muhiimsan oo suuqeynta waxa la yiraahdaa dadku waxay rumaystaan asxaabtooda ama dadka ku xiran yihiin ama recommendationska alaabta ama adeegyada ay soo iibsanayaan dadku ay ka bixiyaan asxaabtooda in ka badan inta rumaystaan maxaan ku leeyahay xaysiisiyadan iyo idhahdan meelaha lagu sameeyo marka waxay la tahay hadii customer-kaagu uu noqdo satisfied oo daryeesho dad badan oo ku keenaya macaamil badan oo ku soo xiraya talabaad company-gaagi baa ku sii badanaya guushiisii iyo faa'iidadiisiba ta ugu dambeysana waxa weeye adeegood lagu barto inaad macaamiisha daryeeshaa waxay ka dhigaysaa mid ka duwan ciddii kale kula tartamaysa mid ka duwan differentiation bay keenaysaa ah inaad ka duwanaato ciddii kale suuqa ku jirtay ama ganacsiga ku jiray taasi waxay ka dhigan tahay mar kasta oo ay shirkadda ama ganacsigu macaamilka daryeelo waa mar kasta oo uu ka yaraado kharashka uu xayeysiis ku sameyn lahaa oo macaamil aad daryeeshay wuxuu u sameyn karayaa ganacsigaaga ii bilaasha waxaan u soo jiidayaa macaamil fara badan su'aasha ugu dambaysa barnaamijku gabagabo ku jira su'aasha ugu dambaysa waxay tahay Maxamed si guud markaad u eegto ganacsiyada dalkeena intee in eeg bay leeg tahay bayna oran karnaa ilaalinta ay ilaaliyaan daryeelka macaamiishooda Axmedow waxaan oran karaa markaan eego aad looma ilaaliyo bal lama ganacsiyadu maba yaqaanaan qiimaha uu leeyahay macaamilku maba yaqaanaan waxa laga yaabaa cid customer ama macaamil u imanaya inaanay uba arkin qof wax ka iibsanaya mooyaane macaamil u arkin inaanay u arkin ganacsigiisa maxaan ku dhahdayay salary-ga amba mushaharaadku bixiyo wax kasta oo soo galay in macaamilkan ku xidhan marka waxay la tahay the level aad u hooseeya ayuu marayaa adeega macaamiishu in kastoo imika aan soo korayno
dabcan dhowr sababood baanan u sababeeyay waxyaabaha in la fahmi waayo qiimihii uu lahaa macaamilku sababta koobaad waxaan ku sababeeyay horta in aanay ganacsiyadu loo ogeynsan sheegay qiimaha macaamilka ilaalinta daryeelka macaamilka qiimo badan lama joogto waayo waxa laga yaabaa in aan wali inagu kama faa'iideysano science-ka ama aqoonta ama technology-ga tusaale ahaan waxa laga yaabaa in ganacsiyada inta badan ma laha platform ama meel ama system ay ku macaamiishooda ku daraaseeyaan waxa laga yaabaa ganacsiyadu in aanay maxaan ku daraasaad ama research aanay sameynba ama aanay uba diyaarsanayn waa sabab weeye sababta labaad waxa weeye taas jaamacadaha laftoodii ma soo saaraan cid ku takhasustay macaamiisha oo hadii jeer waxa la yiraahdaa marka qofka lagu soo tababaro jaamacadda ayuu yimaada ganacsiyadii iyagoo tababaran marka in dad badan baan marketingka jaamacadaha ku soo dhigan walina looma arko inuu marketingku yahay takhasus suuqa looga baahan yahay taasina waxay ka soo horjeedaa xaqiiqda ka taala suuqa shaqada ee Soomaaliland boqolkiiba 75 sida World Bank report uu sheegay boqolkiiba 75 dadku waxay ka shaqeeyaan service sector-ka ama ganacsiyada adeegyada bixiya ama bixiyaan adeeg isgaarsiin ama bixiyaan adeeg kale oo maxaan ku rahay xaysiis ama si kala baha adeegyada boqolkiiba 75 iyadoo dad ganacsiyadu ay yihiin service ama adeeg ayaana haddana dadku daryeelin aanay soo baran ardaydii marketingkii ama suuqgeyntii sababta saddexaad daryeelka macaamiishu dalkeena uu liito waxay la tahay wali competitors ama supply-gii suuqa ayaan badan waxa laga yaabaa marka isgaarsiinta hal company ama laba company ayaa suuqa haysata marka la yiraahdo daabacada hal company ba ay haysta ama saddex company marka la yiraahdo dharka dhowr laakiin waxa iman doonta xilli suppliers ama cidda adeega bixinaysa ama alaabta iibinaysa ay badato waxaana la yiraahdaa shaygu wuxuu ku xiran yahay hadba inta laga helo marka marba waxa iman doonta macaamilku uu yaraan doono ganacsiyaduna ay badan doonaan iswadaar hadda saytay markaas marka la baran doona faa'iidadu leeyahay macaamilku iyo daryeelkiisu faa'iidada leedahay sababta afraad وانا طبعا waa soo maray suuqgeynta iyo adeega macaamiishu waxa weeye damaraaxish ay soo mareen weey oo marba jirtay adduunka aan cidda supply-ga suuqa wax bixinaysa ee alaabta iibinaysa ba ay yarayd ganacsiyaduna aanay ka fikiri jirin ba in adeega la daryeelo macaamilkeena daryeelo isaga ku qasbana waxa yeela suuqa waxa yar la hayo ma garanaysa ilaa laakiin imika wali inagu waxaan aad inoo soo gaarin globalization-kii iyo technology-gii marka waxa inkastoo imika baan arki karo in ganacsiyo badan oo dibadda ah ay kula tartamaan dalkeena ganacsiyo ah oo waxa laga yaabaa macaamilka imika isagoo halkan jooga inuu company aan halkan joogin ama ganacsi aan halgeesa joogin inuu dibadda oo macaamilka dibadda ka iibsan karo marka company-gii aan dalka kula joogin competitor buu kula yahay laakiin Soomaaliya kulama joogo adeeg marka waxa keenaysa technology ba keenaysa sababta afraad aan u malaynayo in adeega macaamilku ama daryeelka macaamilku aad u liito Soomaaliland waxa weeye dadka laftoodu wali awareness-koodii iyo level-koodii maqranaysa aqooneed wali halkii loo baahnaa ma taagna waxa iman doonta mar dadkuna ay wax barteen generation-iska soo socda kadibna dadku ay isweydiin doonaan keeba ugu tayo fiican keeba ugu in badan lahaynaya keeba maqnaa waxyaabaha isweydiin doonaan ugu dambeynna waxay la tahay waxa jira qawaaniintii ama regulationskii ilaalin lahaa macaamilka ayaan inaga Soomaaliland amba liita ama aan jirinba oo adduunka waxa jira waxa la yiraahdo consumer protection laws baa jira amba qawaaniin ilaaliya qofka wax iibsanaya exactly consumer-ka oo ku qasba inta badan dawladda samaysa oo regulator-ku waa dawladii waxay ku qasbayaan ganacsiyadii inay standards meet gareeyaan amba level adeegoodii inuu fiicnaado tayadoodii in la regulate gareeyo amba la baaro maxaan ku dhahday macaamilka sida u daryeelaan in la baaro waxyaabahaas oo dhan la baaro exactly waxay ka sameynayaan alaabaha ama adeega sida qabanayaan in la baaro dadka tayada maxaan ku dhahday qualification-ka khibradda doorkii dawladda marka waxaad moodaa in regulationskii kaasina uu maqan yahay intaas oo isbiirsatay ayaa keentay in macaamilka aan la daryeelin Soomaaliland laakiin waxay la tahay maadaama dalkeenu service uu baran yahay suuqa shaqadu inay iman doonto xilli macaamilku gold noqdo
oo la waayo oo lagu tartamo oo kadibna dadku ogaadaan qiimaha macaamilka kadibna lagu tartamo sidii loo raali gelin lahaa macaamilka taas waxay ka dhigantay halka imka alaab lagaga tartamayo ama adeeg lagaga tartamayo in hadhow lagu tartami doono sidee loo wanaajin lahaa daryeelka macaamilka waayo macaamilka sheegaya Axmedow wuxuu sheegay macaamilku hadii jeer alaabta loo baahan yahay marka alaabta iyo macaamilka horeeya macaamilka ku sheegi kara alaabta loo baahan yahay kadibna ganacsigu markuu macaamilkiisa ku hirgaleeyo ee uu alaabtii ogaado u baahan yahay ayuu alaabta soo iibsanaya amba sameynaya marka macaamilka ay man doonto mar lagu tartamo marka 75% ay walbanku ku sheegayaan inuu dalku yahay iibkiisa ama ganacsigiisu inuu adeeg yahay suuqiisa shaqadu adeeg yahay waxa saas u noqonaya daryeelka macaamilka maxay tahay Maxamed talada aad siinayso talada aan siinaya waxa weeye in macaamilka lagu noqdo waxaan soo qoray dhowr talaan ayaan soo list gareeyay talada koobaad waxa weeye aan inta badan ganacsiyadeen ogeyn waxa weeye waxa jirta suuqgeynta wax la yiraahdo waxyaabaha yaryari marka suuqgeynta la joogo wax weyn bay sameeyaan tusaale ahaan waxa laga yaabaa macaamil ku soo gelinaya $1/2 marka la eego waxa laga yaabaa in qiimo hoose tahay $1/2 macaamil ku soo gelinaya in wax laga yaabaa hadhow ku sameeyo qiimo badan uu ku sameeyo sheekana waan ku maqlay anigu ninba waxa dhacay habeen maqaayadahan ama ganacsiyadan kafeega lagu cabo ayaa waxa dhacday ninba u yimid Caraba kadibna maqaayad markuu soo galay baa lagu yiri injiinkii kafeega wal baqtiyay isagu wuxuu doonayaa koob kafee ah oo $1/2 ah qiimihiisu $1/2 kadibna managerkii maqaayada ayaa soo kacay dib u shiray marka inta badan dadka technician ka yaqaan way rawaxaan managerkii baa soo kacay wuxuu shiray maxaan ku dhahday makiinad dib u shiray kadibna kafeega buu areegay 0.5 buu shiray inta badan ganacsiyadu waxay ka fikiraan dabkan ku baxaya iyo waxaas tii waxay keentay ninkii inuu yiraahdo waad mahadsantahay saad igu shaqaysay waxaan ganacsi baan leeyahay adeega cuntada inta uu ganacsiga socdo cuntada subaxii iyo qaradaba restaurant-kaaga ama meheradadan baa laga soo qaaraya waxa la sheegay in 0.5 kii uu dhalay $10,000 ma malaayin u dhalay marka ganacsiyadu inaanay yaryaraysan macaamilka wax kasta soo gelinayo inuu markaste uu qiimo fiican leeyahay taas waa talo koobaad talabada waxa weeyaan customer-ka la dhageysto markaste ganacsigeenu inta badan wuxuu ku dadaalaa isagu inuu promote gareeyo alaabta xaysiyo laakiin feedback ba aanu arag exactly macaamil falcelinta kuma xisaabto marka macaamilka waa in la dhageysto sidee loo dhageysanayaa iyadoo dabcan technology la isticmaalayo the comments kii tusaale ahaan imka Facebook oo kale ama platforms kan social media comments ka macaamilka interactionska waxyaabahaas ay waa feedback way imka hadda waxaan arkaynaa in social media la isticmaalo oo aad uga suuqgeyntii iyo daryeelka macaamilkuba aad u sahlay si fiican in loo target gareyn karo si fiican loo socon karo maxaan ku falcelintooda loo ogaan karo talada saddexaad waxa weeye markasta ganacsigu in ka badan inta uu filanayo qofka macaamilka ah inuu qabto tayo wanaagsan wax wanaagsan uu qabto talada kale waxa weeye in la ogaado in dadku macaamil wanaagsan oo wanaajisay baa macaamilka la keena laakiin xaysiis aad samaysaa waxba macaamil ma keenayso marka macaamilka in lagu dadaalo in system loo sameeyo iyadoo waliba imika dadasaan sheegay digital la isticmaalayo internet la isticmaalayo barihi bulshada laga faa'iideysanayo laakiin ganacsiyadu haba yaraadee inuu waxa muhiimsan inuu sameeyo system uu ku ogaanayo macaamiishiisa even waxaad ku ogaan kartaa macaamiisha age groupka ama age-ka ka aadka ku xiran kadibna hadhow markaad xaysiis sameynayso waxaad ku xaysiiska targetka waxaad saaraysaa age groupkii kugu xidhnaa ama daadii kugu xidhnayd marka macaamiishu inay ogaadaan macaamilkooda bartaan ayaan ku talin lahaa oo ay sameeyaan platform ay ku baranayaan xiriir fiican kula sameynayaan contact inay ka hayaan ganacsi maharad baad arkaysaa markaad adigoo 3-4 jeer wax ka iibsaday magacaagana aan oqon numberkaagana aan hayn oo mushkilad weey marka macaamilka wax fiican system yar inta sameyso at least magaciisa contactgiisa emailkiisa exactly kadibna inaad la hadli karto markuu ka iibsaday kadib inaad markaad garaac waxa macaamilka waxa la dhahaa sometimes inaad la hadasho tiraahdo ka waran areegii ama alaabta aad iibsatay ayaa keentay in kugu soo noqdo warninka waxa jira ganacsi halkan oo ka soo warhelaya inaad ku tiraahdo waad ku mahadsan tahay sida aad wax iga iibsato ama aad ugu xirantay ganacsigayga
marka system kasta lagula xiriiriyo macmiilka in la sameeyo ayaan ku talin lahaa lagu noqdo muhiimadda macmiilka la daryeelo guusha ganacsiguna wuxuu ku jiraa hadba inta la daryeelo macmiilka marka ganacsiyada ay noqotana dhibaarmanada ama qaybaha kala duwan ee uu yeesho ganacsiyadu qaybta ugu muhiimsan waa qaybta suuqgeynta weey waa suuqgeyntu waa qaybta qaabilsan in ganacsiga ay ka dhigto ganacsi faa'iido sameynaya faa'iidadina waxay ku xidhantay macmiilka ku xidhantay yes ujeedada barnaamijku waxay tahay inaan la wadaagno dadweynaha in ilaalinta macmiilku ganacsigu nooc doona wax noqdo ama adeeg ka bixiyo ama alaab ha iibiyo inay guusha ugu weyn tahay macmiilka shirkadu waxay faa'iido ku sameyn kartaa ama dhaqaale ku soo saar kartaa waa inay iib sameyso iibkana waxa ku xidhan in macmiil la helo macmiilkiina si uu ganacsiga ugu xidhnaado waa inuu inta uu isagu filayo in ka badan أو شركة أي سوق لسه أما يجور هيسو يعني نحن مرلبات كاجا محل علي محمد أقبل هذا برنامج كاتساق هذا ما تصنتي هذا يلا هذا ما تصنتي